loo haystaa qarabada maxaa la kulanta ma nin baa qarabadiisa loo diiday in la kulmo ma nin baa qarabadiisa in la kulmo loo diiday sheeg su'aasha ka jawaab Soomaaliye aabaha ma diiday in la kulanto eedada ma diiday in la kulanto walaalka ma diiday in la kulanto ka jawaab waa su'aal jawaabteeda mudan laga fadhiyo adiga musabixiyo waxaan leeyahay inta inteena faraha ka bixin musabixi arrinkaas kawaantow awr cadaysima ayaad wadaa musabixiyo awr cadaysima ayaad wadaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeennii falanqaynta wararka oo maanta aanu ku dul istaagi doono xildhibaan qaasim aadan saleebaan oo in dhoweydba baraha bulshada haystay ayaanu ku dul istaagi doonaa haddii barnaamijkayga uu ku soo gaaro waxaan kaa codsanayaa si shuruud la'aan ah oo saaxiibtinimo ay ku jirto inaad la wadaagto asxaabta kale ee Soomaaliyeed ee adduunyada meel kasta ku sugan haddii aanu ku bilaabno xildhibaankaas dhabarkayga ka dambeeya ayaa waxaa in dhoweydba baraha bulshada haystay Soomaalida iyo warbaahinta iyadoo Soomaaliland xabsiga dhigtay haddaba saddex su'aalo ayaan ku soo qaadan doonaa ama su'aasha isweydiinta badan waxay tahay muxuu ku xiran yahay qaasim aadan saleebaan muxuu ku xiran yahay cadaalad ma heli doonaa maxay tahay sababta ka dambaysa in la xidho eedeymo noocay ee la soo jeediyey iyo weliba xukuumadda Somaliland ee hogaamiye Musabixi Cabdi oo ciyaarasta istaraatiijiyadii ugu dheerayd ee doorashooyinka Somaliland taasoo ah in baarlamaanka Somaliland ay ku yeelato aqlabiyadii ugu weyneyd hadegdegin la soco barnaamijkayga lana sii wadaaga asxaabta haddii aanu ku bilaabano xildhibaanka dhabarkayga ka dambeeya ee lagu magacaabo qaasim aadan saleebaan oo ka saraxan gobolka Sool degmadiisa Cadeeye ayaa in dhoweydba waxaa baraha bulshada haystay in ciidamada Somaliland ay xabsiga dhigeen iyo weliba xildhibaano kale oo musharaxiin oo ka tirsan gobolada Togdheer iyo Sool kuwaasoo Somaliland ay u jirtay waaran haddaba su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay istaraatiijiyadda guud ee Somaliland ama xisbiga kulmiye uu ka leeyahay in xabsiga la dhigo musharaxiin soo qaatay shahaadadoodii hadegdegin la soo barnaamijkayga xukuumadda uu hogaamiyo Musabixi Cabdi ayaa waxaa in dhoweydba kadib markii lagu heshiiyey doorashada Somaliland ay in dhoweydba xabsiga dhigaysay musharaxiinta xisbiyada mucaaradka iyadoo oo ciyaarasta istaraatiijiyadii ugu dheereyd abid ee ciyaaraan xukuumad haysta xisbiga kulmiye ee Somaliland Musabixi Cabdi ayaa waxa uu go'aansaday in uu doorashada 31 markay dhacayso inta wixii ka dambeeya ay xoog iyo xeeladba iskugu geeyaan in ay doorashada baarlamaanka Somaliland 90% inay noqdaan xisbiga kulmiye iyo waliba golaha deegaanka si ay aqlabiyad u yeeshaan xukuumadda uu hogaamiyo waxyaalaha iyadoo ay rabtana ay u meel mariso Musabixi Cabdi ayaa waxa uu xukuumaddiisii intii ugu badan 60% uu sharaxay golaha wakiilada Somaliland iyo deegaanka iyo gobolada Somaliland isagoo oo sheegay in aysan si kale ku soo heli doonin in ay sharaxaan oo aysan soo hayn karin xisbi aqlabiyadda ku filan kulmiye Musabixi Cabdi ayaa waxa uu xisbigiisa la hortagay ama xisbiga kulmiye in ay sameeyaan wax kasta oo xog iyo xeelada oo ku aadan arinta xisbiga kulmiye ee Somaliland iyaga oo sheegay in ay u keenaan 95% ama 80% inay aqlabiyad rasmi ku yeeshaan golaha baarlamaanka Somaliland ee soo socda bishan 31 May ay ku jirno in la dooran doono Somaliland waxa uu Musabixi Cabdi sheegay iyo xisbiga kulmiye isla qaateen in gabi ahaanba ay doonayaan inay isku filaysiyaan oo xog iyo xeeladba wixii allaala waxay hayaan ay ku yeeshaan xisbiga kulmiye ee Somaliland tad iyo ka duulaya ayaa waxay soo xigteen mahma gabaygii Hadraawi ee ahaa nin ujeeda kaalihi ku sameeyay kun imood musharaxa dhabarkayga ka dambeeya qaasim aadan saleebaan ayaa waxa ay oo haysta shahaadadii musharaxnimada warqadii dambi la'aanta ee CID-da iyo waliba shuruudihii kale ayaa waxa ay sameeyeen inay iska xidhaan ama xabsiga ay taxabaan xildhibaankan oo ah ninka ugu firfircoon gobolka Sool ahana la saadaalinayo inuu ku soo baxo xildhibaanada Somaliland ee xisbiga wadani iyo waliba gudoomiyaha baarlamaanka Somaliland ee xisbiga wadani
ayaa waxa ay sheegeen in ay u sameeyaan waxyaabo propaganda xisbiga talada haya ee Somaliland ee kulmiye ama ciidamada booliisku kaasoo ah inuu wato shahaadooyin aan waxba ka jirin iyo waliba kuwa kale oo ka tirsan xisbiyada inay wataan shahaadooyin. Hadda waa ninkii soo qaatay shahaadada rasmiga iyo warqadda dambi la'aanta. Taa markay soo ogaadeen oo ay sagxadda soo taabteen in ninkaas wixiisu ay u saxan yihiin ayaa hadda waxa u sameeyeen in ninkan uuba yahay nin la shaqeeya koonfurta Soomaaliya ama Soomaaliya ay xiriir leeyahay. Sawirkaas sida idinka muuqata waxa uu la sawiran yahay Xaliime Ismaaciil Xaliime Yaray iyo waliba Cali Yara Cali oo ah gudoomiyaha amniga ee gobolka Banaadir ku xigeenkiisa iyo waliba gudoomiyaha doorashooyinka qaranka Xaliime Yaray oo labadooduba ay yihiin ehelo ama xigto isku dhow ay yihiin. Kaasoo magaalada Muqdisho uu ku tagay qaraabo salaan bilihii la soo dhaafay halkaasoo dhulka Soomaaliyeed oo dhan uu qofku uu tagi karo ama qaraabadiisa hooyadii aabihii uu soo salaami karo isagoo aan xilxilna ma haynin ninkanu hadda caadi buu iskaga socday. Dhinacygan kale ee midigta waxaa idinkaga muuqda Xuseen Ciga Dayr oo ah afayeenka hore ee xukuumadda Soomaaliland haddana xisbiga kulmiye ka tirsan ayaa waxa uu ku sugan yahay magaalada Kismaayo ee Jubbaland isagoo ka qayb galay calaamasaarkii madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ee lagu qabtay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Haddaba su'aasha isweydiinta badan maxay tahay maxaa xaaraan ka dhigay in Qaasim Aadan Salebaan uu la kulmo qaraabadiisa saxda ah ninkanna Xuseen Ciga Dayrna uu sidiisaba isagu arrimo siyaasadeed u tagay magaalada Kismaayo. Maxaa ka dambeeya maxay tahay bacsiga lagu hayo xisbiga wadani ee Somaliland waa nin ujeeda kaalihi ku samee ku imood ama maamahdii kale ee dhahaysay nin gabadhaada raba nin islaantaada raba gabadhaada kuma qanco. Xisbiga kulmiye ee Somaliland ayaa waxa uu ku eedeynayaa arrintaasi in ay tahay arrin oo xaaraana oo waxba ka jirin oo qofkii la kulmaa Soomaaliya inteeda kale inay tahay arrin xaaraana oo ay sharciga ku xadgudbeen. Wasiirka warfaafinta ee Somaliland Salebaan Cali Koore ayaa waxa uu maanta soo saaray inay cadeymo rasmi ah u hayaan arrintaas oo ay yihiin khiyaanooyin qaran oo ay sheegeen inuu Qaasim Aadan Salebaan uu galay. Haddana ciidamada booliiska ee Somaliland ayaa iyaguna waxa ay si rasmi ah u sheegeen in aysan xukuumadda Somaliland ay cadeymo u hayso Qaasim Aadan Salebaan oo uu yahay gudoomiyaha beelaha dega gobolada dhexe ee Soomaaliya ee Galmudug gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb bay yiraahdeen in uu yahay musharaxaasi oo uu gudoomiye u yahay saa darteedna uu ninkanu ku soo qaatay qandaraas waa sidii hadalka u dhigeen. Arrinkaas waxaan leenahay wax ka jira male waa arrin propaganda waxba aysan ka jirin. Gudoomiyaha jaaliyadda beelaha uu ka soo jeedo uu ahaa ninkanu London ayuu ahaa. Arrintaas waxaa markiiba ka jawaabay Suldaan Mustafa Maxamuud Awseed oo ah suldaanka guud ee Qaasim Aadan Salebaan iyo Xaliime Yaray iyo waliba Cali Yare waxa uu sheegay in aanu ahay suldaan buu yiri Qaasim Aadan Salebaan Xaliime Yaray iyo waliba Cali Yare Cali waxa uu sheegay in anigoo ah suldaankiisii in qofku uu booqan karo meel aysan xaaraan ahayn qaraabaduna ay booqan karto. Xisbiga waxa uu sheegay suldaanku in arrintaas ayba tahay arrin aan waxba ka jirin oo uusan ninkanu khiyaano qaran gelin isagoo oo suldaanku shaaca ka qaaday in gabi ahaanba ay tahay arrintaas arrin propaganda. Haddaba xisbiga wadani ee Somaliland ma ka soo doorashadan ma ka hadhi doonaa mise uu ku dhawaaqi doonaa. Xisbiyada kulmiye xisbiyada ucud iyo wadani ayaa waxay soo saareen warqado iyaga oo sheegay in faragelin weyn lagu hayo doorashadii Somaliland. Ninkan Qaasim Aadan Salebaan ayaa waxa uu yahay nin aad u firfircoon oo xisbiga wadani ahna qaaradda Yurub afayeenka qaaradda Yurub ee xisbiga wadani uu yahay. Waa nin aad iyo aad ololihiisa u sareeyaan waana ninka loo saadaalinayo in uu la kulmo ama uu noqdo gudoomiyaha baarlamaanka Somaliland taasoo odaygii Muuse ahaa uu tooshka ku ifiyay uu ninkaas tan laga soo qaban buu yiri Muuse Biixi ama aan xabsiga la dhigin eedeymo kasta loo sameeyay ninkaas ciidamadu xabsiga ay dhigaan.
haddaba muuse aqoon ma laha ayaan leeyahay. muuse talooyin baan u jeedin lahaa. muuse biixi waxaan leenahay aqoon ma lihid qaasim aadan saleebaan iyo weliba suudaankiisa. waxaan leeyahay arrinkaas muuse inuu ka waantoobo oo arrinkaas uu ka laabto ayaa leenahay. odaygii ugu weynaa qaasim aadan saleebaan jifadiisa ama beeshiisa ayaa waxa uu sheegay in uu gabi ahaanba arrinkaasi uu ka soo horjeedo oo uuna sheegay inaan ahay odaygii ugu weynaa beesha muuse biixina aan ku codsanayo inuu soo daayo. bal waa kane ila daawada odaygii qaasim aadan saleebaan oo ah odayga ugu weyn beesha qaasim aadan saleebaan. فأنا مدحوين مصبيحي عبدي وأنا كعصينا إيه نوسي ديسا نكا حبسك كسي ديسا وأنا نقول من دابتا أنا وكل دعينيا دعاء بدن فانكو صدري نكا نوسي دا كل جاga نوgu codsanaya madaxweynaha Soomaaliland inuu soo daayo. haddaba waxaan leenahay Muuse Biixi Cabdi baabuurkiisa aad u waday ayaad waxaad galisay dhiiqo ama dhiidhi. arrinkaas waxaan rajeynayaa in suldaanka iyo odayaasha inay u kacaan si rasmi ah loo soo daayo. qof qarabay soo booqan karaa, meesha rabona mari karaa. waxa xaaraan ka dhigay in Xuseen Ciga Dayr uu noqdo uu Soomaaliya tago isagoo xukuumad xisbiga kulana ka tirsan kana soo qayb galo xalfadda Axmedoobe ninkana qaraabo uu tago xaaraan ka dhigay. arrinta ummadda Soomaaliyeed ayaa markhaati ka noqonaysa. wax kalena qaasim aadan saleebaan looma haysto. waxaa loo haystaa qaraabada maxaa la kulanta. ma nin baa qaraabadiisa loo diiday in la kulmo? ma nin baa qaraabadiisa in la kulmo loo diiday? sheeg su'aasha ka jawaab Soomaaliye. aabaha ma diiday in la kulanto? eedada ma diiday in la kulanto? walaalka ma diiday in la kulanto? ka jawaab. waa su'aal jawaabteeda mudan laga fadhiyo adiga Muuse Biixi. waxaan leeyahay intuu intaana faraha ka bixin Muuse Biixi arrinkaas ka waantow awr cadaysima ayaad wadaa. Muuse Biixi awr cadaysima ayaad wadaa. arrinkaas ka dugtoonow. awr cadaysima ayaad hama saaraysaa. awr cadaysima ayaad hama saaraysaa. Muuse Biixi baabuurka dhiiqada ka saar. ninkaana soo daa ayaan kula yahay. ninka odayga ahaa ayaa kula hadlaya. suldaankii waa hadlay, odayaashii waa hadleen, dadkii waa wada hadleen. Muuse Biixi arrinkaas ka dugtoonow arrinkaas. waa inaad si rasmiya u soo daysaa ninka odayga ah xisbiga wadani ka sharaxan. waa xildhibaanka u sharaxan uuna soo baxaya waa ognahay. ka daa arrinkaas ayaa Muuse Biixi baabuurka dhiiqada ka jooji baabuurka dhiiqada. war waa ninka odayga ahaa abshir oo idin leh la socda barnaamijkayga. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.